munaasabad lagu daahfuriyay xarunta waxbarashada Maamucuud ee qaybta saddexaad ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho. Munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa madax iyo marti sharaf kala duwan waxaana kamid ahaa maamulada xarumaha kale ee waxbarashada degmada Afgoy iyo deegaanka Goboley. Ugu horreyn waxaa munaasabada daahfuray agaasimaha guud ee xarunta saddexaad ee Maamucuud ee iskuul Al-Ustaad Abshir waxa uu soo dhaweyn diiran hawada u mariyay dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay maamulaha iskuulka Maamucuud ee xaruntiisa deegaanka Goboley Al-Ustaad Amiin iyo sidoo kale maamulaha iskuulka Maamucuud ee xaruntiisa degmada Afgoy ee gobolka Shabeellaha Hoose Al-Ustaad Shucayb iyo mas'uuliyiin kale. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. سلام بعدي إلهي سبحانه وتعالى ما أصل يعني مكان كان أو يعني برنا دين السلام كان وفجي ثانيا وحانو ما علينا إلهي سبحانه وتعالى أمريو يعني إخواني سأفتهين مدرسة حاليا دار المتقين وحيرسة مؤسسة ممعودة ومدرسة ومجانئة ولو تغلي المها ديرتاه أقوانتا أن أودين إن إسكبحيان يعني فيها أم بالعقدة لو برنا يوم يعني وحبرشدة ومدرسة لو تقلي إن أمت الصوماليات لو ببادية جهرية مركا مانتا وفرطانكي مدرسة دان وقلت الله يقشيد غارهان توفيق سأفتهين سوشة حريها مدارس بديهن ما أنتم حاجة ولا خيبتي يقشيد الجملة marka waxaan leenahay dadkii yani martida noo timid ugu horeeya sheekhana Sheekh Maxamed iyo rag kale yani iyo waalidiinta joogaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin dhammaan macallimiinta iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee ka soo qayb galay xafladan furitaanka Maamucuud College ama Maamucuud International College gaar ahaan iskuulka Al-Muttaqiin oo maamul iyo mas'uul iyo madaxba ay u tahay oo ay gacanta ku hayso Maamucuud Foundation مسؤول كرا يمسؤول كهوسبة وياهي الأستاذ أبشر دمان وحنا نقول سلام يا مرة بعد مسجد هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذي وحنقول فرحسنا هاي أنا ما أنت تاجنا هاي مناسبات لوجودها فريو حرون كم إذا حرمها واللي بروها وي ممعودي فونديشن لوجو قانو بربارين توبتك يا وحبرستا يا سلو كلا كبعينتا مسكح ضوضا waxaan aad ugu faraxsanahay in xaruntan aysan ahayn xaruntii ugu horeysay oo Maamucuud Foundation magaalada Muqdisho ay ka furto anigoo ku hadlayo magaca maamulka guud ee iskuulka Maamucuud College ee deegaanka Goboley waxaan ku faraxsanahay maanta mar labaad iyo mar saddexaadba inay garbahayga taagan yihiin sidoo kale maamuladii iskuulaadka ee Maamucuud International College gaar ahaan qaybtii Afgoy saaxiibkii Al-Ustaad Shucayb iyo sidoo kale macallin Abshir oo asagana maanta qayb ka ah maamulada amba mas'uuliyiinta iskuulaadka magaalada Muqdisho ee ku leedahay Maamucuud Foundation sidaan wada ognahay iskuulka Maamucuud College ee deegaanka Goboley ku yaala wuxuu furan yahay muddo bilooyin ah alxamdulillah ilaahay ana mahad iskale mudnaanta koowaadna Allah subhanahu wa ta'ala ayaa iskale midda xigtana waxa aad iyo aad mar walba dadaal iyo juhdi ugu bixiyay waxaa aad iyo aad mar walba dadaal iyo juhdi ugu bixiyay walaalaha Maamucuud Foundation ardayda wax ku barato maanta waxaan ku qiyaasi karnaa ku dhawaad 100 iyo mazaada iskuulku wuxuu si qaas ah ardayda loogu baraa maadooyinka kala duwan sida farsamooyinka gacanta barashada sidoo kale caafimaadka iyo saxaafadda iskuulka oo aan anigu maamul ka ahay gaar ahaan qaybta Goboley ku yaala waxaa dhigata arday agoon iyo sidoo kale kuwa danyara iyo kuwa waxbarashadii u baahan dhammaan waxay ku dhigtaan si bilaash ah waxay bartaan qaarkood farsamooyinka gacanta oo ay ugu horeyso barashada cilaansaarka qaarkood ay dhameeyeen oo xafladoodii qalinjibinta aan mar dhow hadduu eebid insha Allah qaban rabno sidoo kale qaarkoodna ay dhameyn rabaan waxaan sidoo kale ku faraxsanahay in ay bartaan arday ku dhawaad 25 arday caafimaad oo buugaagtii ugu dambeysay ay hadda marayaan oo aan rajeynayna insha Allah ayaguna munaasabadooda qalinjibinta inaan soo bandhigno goordhow hadduu eebid insha Allah sidoo kale waxaa jira arday ku dhawaad 40 arday iyo mazaada ah maalmaha khamiista iyo jimcaha kala dhigta macad koowaad labaad saddexaad afraad maadooyinka iskuulaadka lagu dhigto iskuulaadka magaalada Muqdisho maadooyinka lagu qaatana ay qaataan sidoo kale mudnaanta iyo sharafta ardayda magaalada Muqdisho wax ku baratan ay helaan
weliba si bilaash ah ayagu waxay uga duwan yihiin waxay wax ku bartaan si bilaash ah amba si lacag la'aan ah laakiin ayagu ma ahan kuwa baabuurkii ku baxsha lacag amba ku bixiya lacag meeshii iskuulka ay ku aadi lahaayeen qaarkood ayaga ardayda facooda ah waxay bixiyaan lacag ay baabuur ku raacaan oo iskuulka ay ku aadaan waxay bixiyaan sidoo kale lacag ay waxbarashada ay ku dhiibaan laakiin ardayda annaga aan maanta hayno ee Imaam Macuudi Foundation ee nagu amaanaysteen oo aan maamul iyo mas'uulba u nahay maanta baabuur raac kama baxo waxbarashadii lacag ugama baxdo waxaasoo dhan waxaa mas'uul u ah walaalaha Imaam Macuudi Foundation ugu horeyso Dr. Sacuud Cumar waxaan leeyahay cimriga haraago عز يكون الله أديو آخرنا ما أنت يوم القيامة جنة إيو إن إلهي نقول يا رجينا هدو أبد إن شاء الله. بعد سبعة الأربعة إن شاء الله حرنا السوق بدو Imaam Macuudi Foundation qaybteeda abdi waxyaabaha u qabtaan insha Allah hadda waxaan anigu u hayaa Imaam Macuudi Foundation arday gaaraysa tiradooda 94 arday u hayaa oo ay ugu cuntadoodii jiibkoodii بيشي سيحنا داوود وحده بحب حبيبه Imaam Macuudi Foundation قد كمل ولا له كرجال كعقود اللي جوي Imaam Macuudi Foundation marka xigta waxaan u hayaa kaamkaas isugu jiraan dad qaxooti ah iyo dad soo barkacay dad qaar way soo barkaceen qaar waa qaxooti iyagu waxay leeyihiin cuntadoodii daawud insha Allah ay waxa ka faal qaaday Imaam Macuudi Foundation bil kasta cuntadooda ku dhignaa daawud u dhignaa tan xigta Imaam Macuudi Foundation waxaan hadda taa u sameeyay ilaa iyo adiga bisha gudeeda 5 ceela u sameeyay insha Allah ceelashan way sii socdaan insha Allah way sii socdaan marka xigta hadda tagaalaha dambe sabti la soo dhaafay waxaan sameeyay xarun oo guto baro dadka maamulku aas dadabeen oo aan wax soo baran waxaan ugu baraa sida Soomaaliga sida xisaabaadka ayaa lagu baraa insha Allah si ay waqtiga u qaataan leeyihiin subaxii waxay soo galaan laba saac soo galaan waxay ka baxaan 4 saac cuntadu meeshii ku leeyihiin quraacdu meeshii ku leeyihiin waxbarashadu way qaataan insha Allah marka xigta walaalaha gargaarka agoonta iyo jooyinka Imaam Macuudi Foundation insha Allah bil kasta waxaan u bixiyaa tiro gaaraysa ilaa iyo 22 qof waxa siya kuba qaarkiyo baahiya gaar qaarka qaba kuwa amoola iyo kuwa jiisa inta dhamaantood waxaa siya bil kasta cuntadooda lacagta mushaaraad insha Allah intaas ayuu assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fadhigan quruxda badan oo isugu jiraan marti sharafta maamulka macallimiinta waalidiinta iyo ardayda intaba marka hore waa ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaan kadib walaalayaal sidaad la socotaan ilaahi subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta wuxuu ka dhigay dad mar waliba u fakara mujtamaca kuwiisa tabarta daran waa arrin qofka muslimka laga rabo caqiidadiisii inay arrintaasi ay ku tirtirsiiso caqiidadiisii arrinta ay ku tirtirsiinayso ayay ka mid tahay saas daraaddeedii ayaa waxaa la rabaa bulshada mar waliba in aan laga helo dad u taagan kuwa agoonta garab qabashadoodii kuwa danta yar garab qabashadoodii in bulshada laga dhex helo maxaa yeelay waa xibin muhiim ah oo bulshada ka tirsan oo haba yaraatee ilaahay ka sokow cid ay sugayaan aysan jirin ilaa dadka muslimiinta ee yacni maaragtay ilaahay qalbigooda naxariista uu geliyey sidaas daraaddeeda walaalayaal sida hadda aada maqlayseen akhyaartii furitaanka ay kelimooyinka ka sii jeediyey waa arrin runtii aad iyo aad muhiim u ah bini aadamka wax u qabashadiisii way dhinacyo badan tahay laakiin markii la fiiriyo dhinaca waxbarashada ayaa number 2 noqonaysa maxaa yeelay qofkani maanta haddaad cunto siiso berituu haddana uu baahan yahay oo garab qabashu u baahan yahay markaad maanta aad bixiso berituu haddana u baahanaya maanta markaad daaweyso haddana berituu u baahanaya laakiin markaad cilmi aad barto isagii wuxuu isgaarsiinayaa isku filnaansho ayuu gaarayaa isaga wuxuu ka shaqaynayaa kii isaga ka yaraa ee da'dii ku xigta ahaa siduu wax u bari lahaa ayuu gaarayaa wuxuu gaarayaa isku filnaansho naf ahaaneed wuxuu noqonayaa qof isaga wax istara غيرkiisina wax tara waana midda yacni maanta loo baahan yahay oo daruuriga ah oo lagama maarmaanka ah waa yacni ma arkaysaa wax qabad ninba ninka kale uu sii gaarsiinayo qolo waliba xilliga ay nooshahay ayaa xilka uu saaran yahay mar haddii adiga aad dhimato oo ifka aad ka tagto dadka kaa dambeeya ayaa xilka uu u yaalaa adiga marka inta aad joogto
ayaa waxaa lagaa rabaa waqtigaaga inaad gelisid, juhdigaaga inaad gelisid, xoolahaaga inaad gelisid, aqoontaada inaad gelisid, waqtigaaga aad gelisid si ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala berita markii la hortago ilaahay uu ku weydiiyo war maxaad addoommadeyda u soo qabatay, war adiga waad nala joogtaaye maxaad ka soo tagtay, ilaahayow aniga waxaan sameeyey goobtaasi wax lagu barto, intaasoo agoon ah, intaasoo danyar ah ayaa ka wada faa'iidaysanayay, waxay noqonaysaa min sadaqaati aljaariya, sadaqooyinka adiga markaad geeriyootid kadib buuggii oo xasanaadka aanan lagaa laabi doonin ay kuu sii soconaya ayay ka mid tahay. yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisii saxiixa ayuu ku tilmaamay idaa maata ibnu aadam inqataca camaluhu, hadduu qofka bini aadamka uu geeriyoodo acmaashiisii la diiwaangelin jiroo dhan waa la soo laabaya ilaa 3 arrimood maahe. 3 arrimood maxaa ka mid ah? sadaqatun jaariya, qofka wuxuu sameeyey sadaqo dadka oo dhan ay ku wada intifaacayaan, ceelaad qoday, waddo oo dadka ay mari waayeen ayaad waddo wanaagsan aad u samaysay, yacni madrasa saan oo kale ayaad u samaysay, ummaddii dhan ay yacni ka faa'iidaysanaysa intii markaasi munaasabka u ahaa, taasoo kale sadaqa jaariya ku noqonay. oo cilmu yuntafacu bihi, ama nin aqoon-yahanaad ahayd, aqoontaadii ayaga aad maaragtay aad ku bixisay oo aad ku qarash garaysay, ayadana waxay noqonaysaa waxa birinta ilaahay agtiisii sabab kugu noqonaya inaad ku badbaado. ama waxaad adduunyada kaga tagtay awlaad saalixiin ah oo aad tarbiyaysay oo aad waqti gelisay, kuwaasaa ilaahay kuu soo baryaya, iyagana ajarkooda lagaa joojin maayo. marka dhammaan aan isu kaalmaysano, ragga yacni ma arkaysa hawsha abaabulay oo isku soo dowladana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran, ilaahay ha idin barakeeyo, wax wanaagsanaad qabateen, waa intaasoo waxaa la rabaa aad kula sii dhowaataan. yuusuf sheekh cabdullaahi xasan, SBN TV, muqdisho.